Nasra Arfai Cooking Channel. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سو دواada asxaabteeda kusoo dhawaada janalkeyga Nasra Arfai Cooking Channel. asxaabteeda haddii aad nagu cusub tahay fadlan subscribe noo saar janalka. haddii aad hore noola joogtana soo dhawaa marka leento. asxaabteeda maxaa sameysanaynaa maanta insha Allah malawax iska fudud insha Allah. asxaabteeda iga raali noqda salaada la adimaay muxuu ahaa sheek oo cisho ah. malawaxaan marka ani waxaan ka dhiga rabaa casho markaas darteed waxaan jeclaystay inay horena idinkugu sii duubo insha Allah. sidoo kale quraacna waa ka dhigan kartaa laakiin hadda ani casho yahay ka faa'iideys asxaabe insha Allah. asxaabe meesha waxaan ku haystaa 2 koob oo koobkan shaah lagu cabo ah oo bur ah. haddii familkaaga uu weyn yahay waa ka badsan kartaa adiga. sidoo kale meesha waxaan ku haystaa sokor qaandadan oo hadda ku soo shubay caanaha oo buuxda oo sokor ah. intan waxaan ku haystaa caano booro. qaandadan waxay qaadaa adiga ilaa iyo 3 qaando oo qaandada caadiga cuntada lagu cuno ah. sidoo kale meesha waxaan ku haystaa wax yar oo far iyo suul ah oo qarfa ah. sidoo kale meesha waxaan ku haystaa wax yar oo cusbo ah ku darsanaa. cusbada qiyaas leh adiga qaandada afkeeda hore camal. sidoo kale meesha waxaan ku haystaa 2 xabo oo ukun ah oo ukunteena caadiga oo dalka oo 2 xabo ah. ukunta isku hubi intaadan ku jibin. aan hadda ukuntan waa ukun nadiif ah waa huba. marka waxa sameeynaa ukunta intaadan burka iskaga jibinin ka hor xasameynaa waxaa ku sameyn kartaa weel kale inta ku jibinay markaas ku shubanay hadan xabada kale ku jibinay hadii hal xabo ku sameysanaysidna enough way marka insha Allah. sidoo kale meesha waxaa ku haystaa 1 koob oo biyo ah waa biyaha caadiga tubada. asxaabe waxaa ku qasanaa mashiinkan oo lagu qaso doolshada iyo waxyaabaha malawaxa iyo saas oo kaleento laakiin gacanta waa ku qasi kartaa marka maraba waqti badan inoo iga baxo. waxaa la rabaa inoo si fiican u jijibisid oo waxyaabaha oo kuskuuska dhan ay ka baaba'aan. marka ani waxa ku qasanaa hadda mashiinta adiga laakiin gacanta waa ku qasan kartaa sida caadiga cajiinka loo qaso insha Allah. hadartaane waxa bilaabaneynaa qasitaankeena. kiinada diyaarsana bismillaah. koobka biyaha way ugu yaraadeen marka biyaha ku soo zaa'idsaday. hadartan diyaar waaye oo ujeedaa wax kuskus ma lahan sidaasana biyo uga dhigay malawax waxa fiican in biyo aad ka dhigtid muxuu ahaa si hadhow oo muxuu ahaa sheek oo jilaac soft kuugu noqdo. marka hadartan waa duwaneena sida ogtahay isaga mala qamiiriyo hore laga duba. hadartan dabka saarneena duwaneena insha Allah. waata asxaabteeda hadartan birta dabka soo saartay way noo soo kululaatay. waxa ku shuban doonaa xabadkeena koowaad insha Allah. bismillah. malawax markii la duwayo waxa fiican dabkii inuu aad ku gaaban yahay si guduud qurux badan kuugu noqdo kuuna bislaado. hadaa dabka u dheereysid maana ku bislaanayo wuuna ka gubana. marka xasameynay dabka iska gaabso tartiibkaaga. bahalka waxa laga caajisaa sababtoo isaga markii la qasayo biyo aad u badan lagu daraa. marka waxa waayo biyihiya laga badinaa markaas badan ku qaadanaya markii inaad dugtid wili qaasadan qofkii oo family oo markaas weyn u sameynayo. waakana had sidaan iigu soo baxday xabadkeena koowaad. haddana waxa ku shubanaa xabadkii labaad.
hadeertaan waxaa sugaa inta noogu bislaana insha allah isku soo laabanayna. Waata asxaabteeda hadeertaan oo kusoo laabtay waxaa ku darsanaa saliidi kadibna waa gidinaa. markaas maasha allah tabaarakallah sidaas quruxda badan oo noogu soo baxay. haddana waxaa idin tusinaa xabadkii saddexaad. haddana waxaa ku shubanaa saliidi asxaabteeda sidaana kusoo wada dhameynaa maraba muuqaalkiina oo nagu dheeraada insha allah. markaan dhameysano waa soo diyaarinaa waxaa arkaynaa sida quruxda badan oo noogu soo baxay insha allah. asxaabteeda markaa soo diyaarsana malawaxeena quruxda badan sidaana noogu soo baxay. meeshaan waxaa ku haystaa koob shaah cadeys ah. cashadeeda caabi intaan waaye maasha allah. malawaxina waa ujeedaa sidaan quruxda badan isaga dhan saasuu isku mid u yahay. waa ujeedaa isaga dhan saasuu isku mid u yahay. jileeciisana ma laga sheekeyn karo. waa ujeedaa siduu jilaac u yahay sidaasuu jilaac u yahay. marka insha allah asxaabteeda ka faa'iideysta. waa malawax aad u fudud runtii muxuu ahaa isheeg casho qurux badan ka dhigo quraac qurux badan ka dhigo muxuu ahaa isheeg asxaabteeda. haddii uu fiidiyogan ku cajab geliye fadlan like noo saar fiidiyooga. haddii aad nagu cusub tahayne subscribe noogu saar channelka. waata asxaabteeda intaa heesanin allah siiyo anagana allah noo siyaadiyo. intaan ku kulmi doono muuqaalka xiga waa walaashiina Nasra Carfa oo idinkaga tagaysa khayr iyo caafimaad bashbash iyo barwaaqo insha allah. Nasra Carfa Cooking Channel. Nasra Carfa